waa xilligii xulashada ama doorashada Soomaaliya. doorkanna waxaa jira musharaxiin badan oo isha ku haya jagadan. laakiin shakhsiyaadkani qalbiga ma ku hayaan danaha Soomaaliyeed. wadamada dunida intooda badan qof dal uma noqon karo madaxweyne isagoo haysta baasaboor shisheeye. miisaanka Soomaaliya iyo wadamada kale. tani waxay keenaysaa su'aalo ah wadankeebay daacad u yihiin. waa kan liiska musharaxiinta iyo dhalashadooda kale. محمد أحمد ترسن بريتش. عمر عبد الرشيد شرماكه كنديان. فاطمة ضيب فينيش. عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه بريتش. حسن شيخ محمود كينيان. شريف شيخ أحمد كينيان. محمد علي نور كنديان. عبد الرحمن فرولة أستراليان. محمد فرماجو أمريكان. علي حاجي ورسمة بريتش. عبد القادر عصبلة أمريكان. جبريل إبراهيم كنديان. wadamadan waxay siiyeen shaqooyin. hoy iyo waxbarasho iyaga iyo caruurtoodaba.
waddamadaas waa inay dib uga faa'iidaan, taasoo micnaheedu tahay waxay musharaxiinta ku qasban yihiin inay u abaalgudaan waddamadaas. U adeegidda bulshada Soomaaliyeed ma noqon doontaa muhiimadooda koowaad ee kuwan raba madaxtinimada. Haddayna waddamada shisheeye ee dunida ogolayn kuwa sita baasabooro shisheeye inay maamulaan danaha qarankooda, maxay Soomaaliya uga duwan tahay? Waa su'aalo u baahan jawaab degdeg ah. Waliba waa inaynaan siyaasiyiinta fiirin qabiilkooda, waa inaan ka fiirinnaa keebaa sida ugu habboon ugu adeegi kara qaranka Soomaaliyeed. Ma ka heshaa barnaamijyada Dalsoor? Ma danaynaysaa in la helo warbaahin Soomaaliyeed xor ah oo u adeegta bulshada? Fadlan taageer Dalsoor. Waxaad bixisaa $5 ama $10 bishii. Deeqdaada sidan aad u bixin kartaa.